carwada bandhiga aqooneedka jaamacadaha gobolada bari ee Somaliland oo muddo 2 maalmood ka socotay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay. Carwada jaamacadaha ayaa noqonaysa markii afraad ee lagu qabto Somaliland, waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland oo taageero ka helaysa hay'adda Save the Children iyo midowga Yurub. Munaasabad kooban oo loo qabtay xidhitaanka carwadaasi ayaa ka dhacday magaalada Burco. ugu horeyn waxaa kelmad waana qaatay Sheikh Dr. Faisal Maxamed Ali oo gudoomiyaha jaamacadda Al-Najaax, gudoomiyaha jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood, Professor Cabdirasaaq Maxamed Aadan Lafoole ayaa tilmaamay qiimaha ay bulshada u leedahay wada shaqeynta jaamacadaha iyo iskaalmaysigu. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda Save the Children ayaa si kooban u sharaxay kaalinta horumarineed ee waxbarashada ee hay'addaasi Save the Children, waxaana soo xidhay carwada bandhiga aqooneedka jaamacadaha gobolada bari agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ee Somaliland Axmed Muuse Muruud. naftayda iyo dhammaan iyo mas'uuliyiinta shaqada hadaynu doonayna aakhiriya duubka inaynu guuleysano waxaanu dardaarmayaa alla ka cabsigu marka la soo ururiyo wixii ilaahay kuu diidayna waa inaad ka dheeraato, wixii alla ku farayna inaad la timaado. waxaan u mahadnaqayaa 9 jaamacadood waxay muujiyeen hantida ay u hayaan dhalinta soo koraysa, haddii ay tahay xagga sayniska iyo haday tahay xagga arrimaha bulshada. jaamacadaha barigu waad arkaysaa waxa meesha yaala technology iyo aqoon intaba aynu ku soo bandhignay. waxay taasi markhaati ka dhigaysaa in wax qabad weyn ay hayaan jaamacadaha ku yaala gobolada barigu. dariiqa diintaynu marayna wata'aawanu 'ala al-birri wat-taqwa wala ta'aawanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. inay ka soo qayb galaan bandhiga carwada jaamacadaha Burco ama Togdheer lagu qabtay gobolada bariga Somaliland oo dhan loogu talagalay. waxay qayb ka tahay hawlaha ay hay'adda Save the Children ka qabato waxbarashada oo aan ku koobnayn tan oo kaliya ee soo socotay ilaa 2015 oo mashruucii horumarinta cilmiga laba oo aynu doonayno inaynu waxbarashada sare, waxbarashada hoose dhammaanteedba aynu kor u qaadno oo aynu kor u sii qaadno tayadeeda iyo manfaca ay ardaydeenu ay helayso. waxay doonaynaa halkudhigii madaxweynaha ee ahaa in waxbarashada la tayeeyo oo maxay ardaydu shaqooyin fiican ay helaan in laga sii caawiyo. ka Save the Children ahaan waanu sii wadaynaa inaan la shaqeyno wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. waa markii ugu horeysay ee taariikhda lagu qabto magaalada Burco bandhiga jaamacadaha gobolada bari, waxaana tani dhiirigelin u noqonaysaa ardayda wax ka barata gobolka Togdheer, gaar ahaan ardayda ka baxday dugsiyada sare sanadkan ee u baahan inay galaan jaamacadaha gobolada bari. Calidaahir Maxamed Boos, TV-ga caalamiga Universal, bandhiga jaamacadaha gobolada bari ee ka dhacaya magaalada Burco.